وحكسونا مجالدا فيانا بلاد كذا نشوف فيها الكامكا وين ودن كان dadka la keenay muhaajiriinta waxaan kula Soomaaliyeed walaal magacaaga nimco Muuse Axmed waa la dhahaa waxaan joogaa magaalada Hosteri kaamka Traaskhiiqan marka dhibaatada aan meeshan ugu haysta ayaan kaaga warramaynaa dadana Soomaaliyeed waxaan bishii 12keedii xageed ka timid waxaan ka yimid magaalada Soomaaliland xageed soo martay markaa waxaan soo maray Liibiya Itaaliya Hosteri Liibiya Itaaliya Hosteri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dee dhibaato naga soo tagnay kulli si garanaysa Soomaaliya dhib baa ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarkayga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaaliya waxaan ka soo baxay Ethiopia Addis to Sudan to Libya to Italia maxaad kala kulantay safarkaagii Saharaha iyo Liibiya iyo Sudan safarkayga waxaan kala kulmay adigu khayr bay kala kulmay insha Allah markaan bad soo galan bay igu maxsuuso badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doonta aan ugu dalashantay doonta aan ugu dalashtay habeenii maalin aan ku jirnay laakiin wallahi ilaahay uu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kadib maxaa dhacay markii doonta dalashtay waxaan badbaadiyay markab Mareykan imisa qof waxaan adigu 380 qof oo waxaan laba doomood baan ahayn marka cid wax ma noqotay may cid wax ma noqon laba dumar aan ugu dhalay cid ma noqon alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas Talyaaniguna keenay Talyaanigii waa kaamnu lagu xareeyay qaarna fara laga dhigay qaarna way diideen annagu waxaan ku soconay Suudaan waxaan dhahnay waan dhaafayna Hosteri baan qabta fara naga dhigtay marka imika halkan baad degan Hosteri imika ayaa 5 bilood ba jooga xaaladaada ka waran xaaladaydu wallahi walaal ma fiicna kuma fiicni Hosteri ma wanaagsanaba waayo Hosteri waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu haayay waxa ay iyadoo naqaabileen iyadoo wax xalaalo caadi ah noo qabanay hadda siraad ka baxna faraaka ayaa meesha ku soo qabanayaan xaaladeedu wallahi Hosteri ma wanaagsanaba maxaa la idin qaabili laayeen waxa ugu wacan qaabilaada meesha kaamka waxa haysta systemkeeda ma garanayna anagu laakiin qoxontigii bay diideen ba qoxontiga ma qaabilayaan way celiyaan ba qoxontiga badankooda laakiin dadka Syria iyo Afghan kiimada wadankan si weyn u soo galay si weyn ba loo qaabilaa si fiican ba loo siiyo sharciyada marka Afrikaankii waxa la loo qabanay ma jirto Nigeria dan Soomaaliland dan Eritrean meeshan ku dulmanay waayo maxaa ugu wacan meesha waxa ugu wacan maamulka sare meesha jooga waa Afghanistan iyo Syria waxa meesha ka maamulaha safarkaaga hadan ku noqdo kharash intee lag baa kugu baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo halkan lagu keenay wadankan hada waxay ugu baxay 8500 ugu yaraan 8500 dollar marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga halistiisa ma soo gali lahayd ma soo galeen mana soo bixeen lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixeen mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankayga wax kaga qabsan lahaa hadeen mooday Yurubina yaad uga soo tagtay Soomaaliya waxa kastoo hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabaha iyo dadka awlaadeedii laba ciyaal aan dhalay inaan baan dhalay imisa jir weey labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood Amir iyo Amira la kala yiraahdo goorma kugu dambeysay waxa ugu dambeysay bisheedii sanadkiis 2014 bishii tobnaad marka misla xiriidaan imika waan isla xiriirnaa waan isla hadalnaa maxay ku yiraahdeen والله ولا ما كان dhaawacmay loo sheegay in kaygu xil waxaad sameysay hooyo waan ogahay inaad dhaawacantay oo kuuga ilaahay ha ku fududeeyo dhaawac waa igu dhacay halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaa kugu dhacay maxaad uga soo dhacday walaal meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahnay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax iyadu u daxan Syria ma isleenay kadib Syria waxaan isleenay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeeygi dibadda ugu dhaan seexda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumo u hadlay afkiiba garanayay annagu si dhibtaasan haysata kadib aniguna aan ku soo noqday kaamkii markii dibadda la saaray dhibtaa darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan siri dabaqood ka soo tuuray dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuuray dhibaatada iga haysata meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan rag kala warramayaan wadanka waa anaga aan ku qaabilsanayn dan Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay bad inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay noloshaygu igu adkaatay dabad maxaa dhacay
meeshan baan meel baahayn walaal meeshu meel wanaagsan ba ma haba hay dabaqaad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afar cishan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gamcood aan ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee wala taagana ku waramaya waan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku igu soo celiyeen meeshii igu soo celiyeen kaamku igu soo celiyeen imkood fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin kuma fiicana wala maxaa ku qorshaysay maxaa sameeyay wax xalaalo waxaan ku imka dee ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxmaan isla way soo qabteen maalmood soo qabteen wadanka halka igu soo celiyeen dhaawaca wadankan baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahaan xaqan ku yeeshay sharci iyo waxaan doonayaa waan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib dee guri fiican la leeyma geeyay xilligaan interview iyo waxba toona laga maqaan sharcina leeyma siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahaan xaqna kama hayo xaq iyo xaq watoona marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inayna horta dadka Afrika imka joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmayaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay dee khayrkeeda Ilaahay idin kulsiyo wadana aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale Soomaad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxaan ogaaday inay dhabti tahay berefooda ayaa dhaxamo gaajo Afrika wa kuma gaashan jirin ba halkan baan ku gaajoonaaba aad baad u mahadsantahay adaa mudan walaa